Waxaa saaka waabarigii magaalada Muqdisho ka dhacay weerar hoobiyaal ah oo laga maqlay joogtiisa qaybo ka mid ah gudaha magaalada Muqdisho iyadoona la sheegayo in madaafiicdaas ay tuureen shabaab inuu ku dhacay meelaha siyaasi kaga fogeyn garoonka diyaaradaha Aadan Cadde sidoo kale xerada Xalane oo fariisan oo ah ajaanibta iyadoona la cadeynin khasaaraha rasmiga ka dhashay weerarkaasi madaafiicda oo mas'uuliyadooda ay sheegteen Al-Shabaab waxaana geeska kale la sheegayaa in dad shacab ah sidoo kale waxyeello ka soo gaaray weerarkaasi madaafiicda oo salaadii subax saakay Al-Shabaab ay ka geysteen gudaha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho muddooyinkii ugu dambeysay ayaana waxaa xusud mudan in weerarada caynkan oo kala Muqdisho ay ka nasatay waxaana dhinaca kale xusud mudan in weerarkan saaka ka dhacay Muqdisho mas'uuliyadooda ay sheegteen Al-Shabaab oo ay sheegeen inay ka geysteen weerar madaafiica Muqdisho gaar ahaan weerarkaasi madaafiicda ayaana sheegeen inay la beegsadeen xerada Xalane iyo sidoo kale garoonka diyaaradaha Aadan Cadde oo ay sheegeen waxyeello kala duwan oo ka dhashay weerarkaasi madaafiicda. Caynul Caafiya Hospital waxa uu ka daweynayaa xanuunka baabasiirka ma dareemaysaa dhabar xanuun caajis joogto ah cuncun dhanka hoosa saxarado kugu adag iyo hamiyari dhanka gowasha haddaba iskaga ciribtir xanuunka baabasiirka muddo ka yar 15 maalin adigoon wax qalliina lagugu samayn wixii faahfaahin kala xiriir telefoonada kala eberli halhal 37 37 83 ama eberli halhal 37 37 86 ama lambarka gaaban ee 3 7 7 7